Bismillah. Waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo arrin muhiim ah kuna socoto dadka la nool cudurrada raaga sida dhiig karka, macaanka, kolestaroolka, wadne xanuunka iyo tayroodhka. Sidoo kale fariintan waxay xasuusin u tahay dhakhaatiirtii la tacaasha bukaanadaas oo daaweeyo. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada East End. Waxaan badanaa la kulmaa bukaanno cudurrada aan soo xusay qaba, daawona u qaata, haddana mar walba daawada laga bedelo. Bukaanka markii la weydiiyeyna sababta looga bedelay inuusan ogeyn ama uu ku gaabsado waa ii shaqayn weysay oo anigoo daawada qaadanayo ayay sokortii ama dhiig karkii soo degi weysay. Laakiin nasiib xumo, bukaanada badanaa ma oga ama mabal isku taxalluji in la raad raaco waxa keenay in iyadoo daawadii ay qaadanayaan haddana xanuunkii uu xakameysmi waayo. Sharaxaad kooban haddii aan idinka siiyo, markii la rabo in la ogaado sababta sokorta ama dhiig karka u degi la'yihiin iyadoo daawo loo qaadanayo waa in 7 shay la fiiriyaa inta aan go'aan laga gaarin oo daawada la bedelin ama cabirkeeda la kordhin. 1. Bukaanka daawada ma qaataa marka hore? Sidii loogu qoray ma u qaataa? Hadduusan u qaadaninna sababta maxay tahay? Matalan, bukaanno badan ayaa daawada hal waqti ka dhigta meeshii la rabay 2 jeer ama 3 jeer inay qaataan, amaba maalin dhaaf u qaata, amaba markay wax dareemaan soo gata. Waxay saas u yeelaan qaarkood waa dhaqaale la'aan darteed ama yaysan sokorta ama dhiigga yuu kaa dhicin oo cabsi ayay daawada ka qabaan, ama inay ku badanayso ay aaminsan yihiin oo dhib u keeni doonto. Wayna ka xishoodaan inay arrimahaas dhakhtarka la wadaagaan, amaba dhakhtarka laftirkiisa ayaaba waqti u haynin sheekadaas dheer. 2. Bukaanka daawadii loo qoray horta ma qaataa mise wuu bedeshay ama qof kale ka bedelay adigoon ogeyn. Taasna waa arrin badanaa dhacdo, daawadii ayaa bukaanka ka dhammaanayso, warqaddii loogu soo qoray ma haysto ama way ka luntay, isbitaalka inuu kusoo laabtana wuu ka caajisayaa, farmashiga ayaa daawo looga soo qabanaa ama saaxiibkiis oo isku cudur yihiin ayay daawo wadaag noqonayaan. Ogow, bukaanka ma oga in daawooyinka cudurradan heerar kale leeyihiin oo dadka iyagoo isku cudur ah haddana inaysan isku daawo noqon karin. 3. Waa isbeddelka cuntada ku yimaado, bukaanka talooyinkii cuntada ma ku socdaa mise waxbaa isbedelay, sababta cuntada jadwalkeeda u wareeray in la ogaado iyadana waa muhiim. Waxaa mararka qaar dhacda qof macaankiisu aad u xakameysnaa oo hal mar isbedelay, cuntada markaa ka wareysatid dhinaceeda wuxuu ku leeyahay safaraan ku maqnaa, cid ayaan marti ku ahaa, jadwalkii cuntada ayaa iga wareeray, ama maqaayad ayaan saarnaa bishii lasoo dhaafay, laakiin daawada joogta ayaan u qaataa. Ama hooyooyinka qaar oo ku dhahayo gabadhaydii cuntada u xil saarneed ayaa iga tagtay oo gooni waxba liiguma karayo maalmahan. 4. Xanuunka ayaa soo kordhi kara oo macaanka ama dhiig karka khalkhal gelin kara oo u baahan in bukaanka laga wareysto lagana baaro inta aan lagu cararin in daawo la bedelo, khaas ahaan haddii astaamo uusan isku arki jirin bukaanku yeeshay. Tusaale ahaan, dhiig kar ayuu isku ogaa, daawadiisuu qaadan jiray, dhowr isbuuc ayuu isku arkay caajis, madax xanuun iyo arrimo kale.